wafdigan ku socday qaramada midoobay ee geeka hadeeri magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay may hogaamiyay wakiilka qaramada midoobay ee qaabilsan arrimo Soomaaliya James Iswan xarunta aqalka madaxtooyada ku meeldeerkan ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo wafdiga ma ka dhawaayay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagaran wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Axmed Madoobe Nuunow Maxamed iyo agaasimaha guud madaxtooyada Koonfur Galbeed Ibrahim Abduqaadir Maxamed hadawaayo kureed madaxdiya wada qaaday kulan saacado socday oo lagu hadalay arrimo doorashooyinka dalka sideenka dhiyay lahayd qof iyo codiyay horumarinta iyo taakuleynta iyo siyahayan qaramada midoobay Soomaaliya mashaariicda horumarineed ku socda gobolada Koonfur Galbeed iyo dardargelinta howlgallada la ka cirib tiray maleeshiyaadka al-shabaab ee ku socda guutaan dalka James Iswan wakiilka qaramada midoobay ee qaabilsan arrimo Soomaaliya oo warfadiyeenka la hadalaya sheegay suurtagalnimada doorashada qof iyo codontiya ku dhigida Soomaaliya iyo xiriirka maamul goboleedyada dalka iyo dawladda federaalka Soomaaliya sidii la wanaajin lahay maydus amaanay howlgallada ku socda Koonfur Galbeed ee la ka cirib tiray maleeshiyaadka al-shabaab. As part of a delegation that includes key multilateral partners in Somalia, key multilateral partners for Southwest State. That includes the African Union, the European Union, Intergovernmental Authority. madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagaran oo wafdigu ka dhawaayay aqalka madaxtooyada ku meeldeerkan ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo ayaa sheegay muhiimadda kulanka walyaabo ku hadaleen maynuusa tilmaamay intii ku hadaleen amniga doorashada 2020ka mashaariicda horumarineed ee ku socda gobolada Koonfur Galbeed iyo wanaajinta xiriirka ku dhaxeeya maamul goboleedyada dalka iyo kan dawladda dhexe ee Soomaaliya. سنة كان قصة شيء نوصل بالتربيين لها عرفت election في دورشين one man one vote election رسمي Soomaaliya كذا أساسون لها وعن طرف صور هذا ومرت المشاريع كسر جارهان Koonfur Galbeed اليوم شوي في حنا وجودين في التاريخ James Iswan wakiilka qaramada midoobay ee qaabilsan arrimaha Soomaaliya kooyo jeylamad magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayaha ka beega maasa xilli dawlad goboleedka Koonfur Galbeed hogaanjay madaxweyne Abdicasiis Laftagaran usas xiriir dhow kula dhaxay dawlado saaxiibka leh ee dawladda Soomaaliyeed. James Iswan ya kooyo jeyna ka amaani walqabad ka muuqda ee uu suubi madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagaran. Faysal Maxamed Isaaq warbaahinta dawladda Koonfur Galbeed aqalka madaxtooyada Baydhabo.